dalalka deriska ah dood kama qabno dadaalka aan dahsooneen ee dadka nabadda suga deriska doorka fiican dheela dabci iyo wanaag ku wada jooga xasiloonida diiradda saara sideen dayaca uga bixi karnaa dalaga iyo deeqda xuduudka uga dheefnaa amniga dooqeena uga dhignaa axadda soo socota nagu soo biir gorshagtadu markay soo dul istaagto labada duhurnimo oo dhegta u raarici Daawa FM iyo barnaamijka danta dalalka deriska oo aan diiradda ku saari doono mas'uuliyadaha na saaran doorka shakhsi walbo amniga iyo nabadda bulshada deriska ah kulan wacan dhageystay ku soo dhaw barnaamijka toddobaadlaha ee danta dalalka deriska ah oo aan ku qaaday dhigno arrimaha shacabka xuduudda wadaago iyo danta bulshada deriska ah xalqada maanta waxaan diiradda ku saaraynaa la shaqaynta saraakiisha ammaanka si looga hortago colaadaha soo noqnoqda ee beelaha la shaqaynta waxay u baahan tahay talaabooyin badan oo soo saara xididka iyo asalka dhibaatooyinka iyadoo la dhowrayo nabadda si looga hortago rabshadaha haddii ay noqoto la wadaaga saraakiisha macluumaad muhiim ah oo iyaga la jiro mar walbo saraakiisha ammaanka waa inay si hoos ah ugu warhayaan dhaqdhaqaaqa bulshada si ay u helaan xog walba sida kacaan beelood misna koox abaabulid markaasna looga hortago isku dhacyada beelaha ayaa inta badan salka ku haya kuna duugan cabasho taariikh dheer sinaan la'aanta bulshada iyo loolan siyaasadeed isku dhacyadan ayaa u soo ifbixi kara noocyo kala duwan sida rabshad dagaal curtay takuurid habaysan iyo siyaabo kale oo dahsoon in saraakiisha iyo bulshada la isku xiro ayaa aaminaad ka dhalato dhexdooda waana talaabada ugu wanaagsan ee lagula shaqayn karo laamaha ammaanka wadajir iyo wada shaqayn baa lagu gudbi karaa colaadaha beelaha dabcan waa maxay talaabooyinka sidee loola shaqayn karaa laamaha ammaanka barnaamijka ayaa ka kooban xubno xiiso badan balse marka hore aan maqalno gundiga xalqadeena gundiga xalqadeena waxaa maanta barteena Facebook noogu soo diray mid ka mid ah dhageystaheena balan dhageysana wuxuuna leeyahay dhageystahan ayaana leh la shaqaynta laamaha ammaanka si looga hortago isku dhacyada soo noqnoqda ee beelaha ma dhici kartaa horta aniga waxaan arkay in badan dadka inay ka cabsadaan oo xitaa ay ku kalsooneen laamaha ammaanka dabcan sidee loo beeri karaa kalsoonidaas waxay nooga baahan yihiin isdhexgal xog bixin la shaqayn ma dhici kartaa in mas'uuliyiinta isku xiraan dadka iyo laamaha ammaanka dhageyste su'aalahaas ayuu weydiinayaa balse adiga ayaa loo baahan inaad ka jawaabtid aad baad u mahadsan tahay dhageystahaasi soo noqnoqoshada isku dhacyada iyo khilaafaadka bulshada ayaa runtii carqaladaysa mar walba nabadgelyada qaranka wadajirka darisnimada iyo horumarka aadanaha ka hortaga waxay u baahan tahay wajahaad xeeladaysan nidaam qorshaysan oo cagta lagu saaro arrimaha hoose ee dhaliya dhibaatooyinka si loo helo nabad laamaha ammaanka ayaa dheelaa door muhiim ah markay timaado xakamaynta isku dhacyada beelaha si looga hortago dagaalada mar walba iyaga ugu horeeya xasilinta bulshada kolkay dagaalada bilowdaan marka waa in loo diyaariyo kaliya hub ma ahan ee garaadka iyo fahanka bulshada iyo asaaska colaadaha ila soco anigoo Maxamed Eeki Ibrahim barnaamijka waxaa marti inooga ah maanta Nuur Cabdow وهجاك دقيستيال كسر وهذا برامج كنا مانتا مرتدا وحنو نور عبدو وجهرين نور عبدو إنوفها فيه وحيابها أنت بدن عري علاضها بيلها. وما سنت بسم الله الرحمن الرحيم مجاي ونور عبدو أحمد ماذا حقود بندق بندرة إن وحا وهر كو قبيلة وحلا سوماليا ديتا دانا يعني قبيلة نقبل دمانيس قبيل كوالس كو كساول هاي لكن قبيلة دي وعرفت نوها قبيلة دوا قبيلة سلسكي بحن لا قبيلة دزن هوس مسكوا أسيد دكتور waxay keenaysaa dadka qaar in la yeesho dadka qaar in la bahdilo dadka qaar waxyaalo badan oo imaada ay guurtay dadka qaar in loo diido marka qabyaaladu waa wax dhibkan ahay kulli musuqmaasuq waa soo galaa musuqmaasuq waxa isku soo galaa cadaalad weyni dadka cadaalad ka rabtay ee cadaalad ka weyni marka musuqmaasuq meesha imaada raasimaalka horta waa wax jira raasimaalka laba kala baxa raasimaalka waa mid dilay keeno dabiici ah iyo mid dawladda ay soo qorsheyso lagu soo tirgalay tan dabiiciga badi hal ama si loo kala baxa
waxa ayaa jira laakiin tii dawladda ay kusoo tirgashay raasmaalka ay kusoo tirgashay waa qorshe loogu tirgalay qorshaha waxa waaye xisaabta dadka meeqa waaye adiga iyo aniga ka tirsan marka xisaabtii xisaabta anaga hadii markii la dhaca caafimaad meeqa kusoo hagaaga qofkana loogu soo tirgalay saas loogu soo xisaabay caafimaad waxbarasho meeqa loogu soo tirgalay biyo meeqa loogu soo tirgalay qof kasta oo meel degan marka waxaad arkaysaa ninkii markaas madaxda ahay ama madaxweynaha noqdo ama governor ha noqdo ama MP ha noqdo waxaas u garab bidixeen midigeyna cidiisi ama meeshuu ku dhashay dhulku ku dhashay meelo qaar daartoodo aan 13 sano joogna dumarayna sana 13 oo county wax la joogna meelo qaar dad uma maleynaysid inay yihiin ward inay yihiin sub county inay yihiin sub county yalka qaarna waxa u maleynay ward waa kasii xun yihiin marka waxaas waxa yeelay cadaalad darrada dadka si loo qaybiyay waxyaalay soo gaaray raasmaalka soo gaaray daaqwatiyan ku sheegay oo waxyaala dabiiciga oo Ilaahay askeenay kamid tahay roob duuda horana waa jirjirtay waxaan waqti badan mudday soo jirjirtay laakiin xal ay lahaan jiray waxa wada xiriir ka dhaxin jiray dadka hadii sanadkan oo Kenya roob ka daa dadka Soomaaliya waa soo gudbi jireen meeshan la daaq jireen si heshiis ayaga ku heshiiyeen oo ugu targalayna jiray laakiin maadaama hadda dawladda meesha soo gashay oo xuduud la sameeyay oo Soomaaliya xuduud ma kala xiraada Soomaaliya Kenya Ethiopia Uganda kulli saas way labada dhinac laba qolo oo isku mid ah ayaa degtay laakiin xuduud dhexdooda la leeyahay xuduudkan wuxuu sameeyay qaynuun dawladdu gaar qaynuunkan dadweynaha meesha degan markii loogu mid lama weydiinin maxay idin dhibaya maxaa ka hor imaan doona oo qabada dhow in ku noqon doona waa la iska soo qoray waana inaad fulisiin qasab waa ilaahay marka waxyaalaha keenay xalkii waxa laga tagay oo dhaqankii horaan lagu xallin jiray waxyaalaha sito biyo waa la isku dagaalaa daaq waa la isku dagaalaa deegaan waa la isku dagaal caadi aan jirto horaan Soomaaliya waa maxay qasuusiyadka iyo quraafaadka naga hortaagan xalinta isku dhacyada soo noqnoqda wallahi qabiil kamid ah waa kaaba badanahay waa supremacy allaadi waa yani ka awood badanahay waa ka xoog badanahay waa ka dhul weynahay waxyaalahaas kulli waxay kamid yihiin waxyaalaha keenay asaas waa inay qalafad ay maadaan waxa heshiis laanta keenila waa ka badanahay way hadda qolooyinkan isla deganahay magaalada isla degan waa la iska saa ay qolada ay kasii badan tahay tii ay kasii yartahay ayaa cagta la saaraa marka si ay kula heshiiyaan ma jiraan nidaamka lagu leeyahay wax diin lagu ma dhaqanahay waxaan ku dhaqanaynaa diin maaha ama waa wax qof soo hagaaji ama waa wax qaynuun oo lagu soo heshii oo dawlad ahaan loo soo dhigay way marka waxa uu rasmi ah sidii diinta ku kala baxda hadii ahaan lahayd qofkas cadaalad uu helay laakiin cadaalad darradaas ay keenayso bash waa maxay doorka laamaha maanka ee ka hortagida isku dhacyada beelaha laamaha maanka horta hadii lama amaanka la anaga waxaan iskii ka dhaxdarsamay lama amaanka marka tiraada waxaan iskii ka dhaxdarsamay nidaamkii oo horaan loo jiray anaga dawladda Kenya markii hore oo waqti xornimo ay qaadatay waxa ka jiray in wax la dhahaa lama amaanka waxay kala bixi jireen kuwa gudaha iyo kuwa xuduudka ku xil saaran waxay ahayn military iyo ciidamada kale kuwa gudaha waxay ahayn police iyo AB hadda laakiin wixii dhamaale waxa la soo rogay maadaama arrimahan ay argagixisay waxay bilowdeen waxa la soo rogay wax la dhaho multi agency kan ma garan kartid AB ku jirto police ku jirto game ku jirto prisons ku jirto marka dadkii reer Kenya isbedelkii ku imaaday lama amaanka looma sheegin wali lagama dhacsin lama dhihin saana nidaamkan u bedelnay ogaada marka lama amaanka asal waxa looga tirgalay ama ha noqdo military ama ha noqdo police ama ha noqdo prison waxa looga tirgalay in nafta iyo maalka qofka wadaniga inay badbaadiyaan intaas way wax kale ma jiraan wax kale ay la sheegay kulli hooseeyo meeshaas ay hoos imaadaan sharciga ay soo rogaan yani amniga ay fiirinaan waxyaalahaas kulli waxay meesha wada hoos imaadaan qofka bini'aadamka naftiisa iyo maalkiisa in la badbaadiyo inay ilaaliyaan nafta qofka bini'aadamka iyo naftiisa iyo maalkiisa inay ilaaliyaan sharciga u go'an boodo qodob kamid ah waa constitution of Kenya laakiin waxa imaaday marka inay musuqmaasuq iyo habartay iyo waxyaalahaas iyo inay imaadaan waxaad arkaysaa in la soo diri oo loo soo diri qabiilada meesha degan mid kamid ah ayaa dhinac saara waa la safana qolada kale marka la riixa marka waxay noqon ama aan county commission ay maada dhul la isku haysaa xuduud la isku haysaa waxa jiraan xuduudii yar oo hoos ahaan ku deegaan ama ku ward level xuduudidaas ninkii oo dawladda madaxweynaha u xilsaarnay waa county commission hadda dhinac la safta marka waxay noqon amandarinay marka waxa keenay waxyaalahaas kulli inaan musuqmaasuq imaado cadaalad darro ay imaado dhan la safasho ay imaado waxaan dhan meesha isku yimaadaan marka waa isku dayn dhowr jeer lama amaanka anaga qayb hadda muddo hal sano meelaasayt waxaan ku jirnaa mashruuc la dhaha samaynta wada xiriirka lama amaanka iyo right ama bulshada ama dadweynaha south qani ama community sidaan u dhahnaba laakiin hadaad fiirisa waxa kala fogeenay dadkan aamin laan in la aamin way
maxaa adiga report geyni dowladda Kenya waxay qabtaa nidaam laha report soo gudbi adiga report geyni reportkaadi waa ka horeeya qofkii aad dacweynaysay ayaa ninkii booliis oo report ku geeyay u sheega uu dhaha ninkaas ku soo dacweeyay saas lagu dhahay adiga intii ninkii la soo qabanin adiga qatar gashay naftaada qatar gashay waxyaalo badan oo saas camal dhacayna waa jiraan magaaladan ay dhexdeeda en tan labaad waxa waayeen ma qabaan nimankaas arrin degdeg ma qabaan en qafa dil maaha wax sheeko u baahan oo in la qorsheysto la guuro oo 2 saac 3 saacadood ay qaadato ma waa emergency way en dawladdan waxay ugu tirgashay mar kasta oo saacad kasta in qaf diyaar isku hada stationka gaari iyo qof in diyaar ku hada sidii arrintaas loogu talaabo qaadi lahayd sidii talaabo looga qaadi lahayd response alla quick response kaas diyaarna saacad sharciyan oo loogu tirgal qaynuun ahaan laakiin dibku waxa waaye ninkii baash fulinayo meeshii fadhi ayaa gaarigiis kala tagay gaariga shidaal ma lahan gaariga waa halaabay darawal ma arkayna waxa loo fadhin 2 saacadood 3 saacadood qofka dili waa gudbiba xuduud Itoobiya isgala ama Soomaaliya isgalay marka waxa waaya nidaamkii oo degdeg qofkan loo caawin lahay ma jirto meesha sidee isku dheelitiri karaan waajibkooda iyo kasalgaarka asaaska isku dhacyada qaynunka fuliyan wax kale oo yeelo meesha ma lahan قانون كينيا واسك عدي قفكس اما كي ما قبيل لفير اما دين لفير كي دين يرتا تريد يرتا كي ما اما ودن kala kiimaw hatta ma sharci Kenya international standard way qofka binaadinka waxa qaba jid loo maro oo xuquuq binaadinka marka nimanka kuma dhaqmahaan ku dhaqanka sharciga ayaa jirin meesha sidee kor u qaadi karaan hor ogaanshahooda iyo ka hortagga colaadaha waa inay isbedelaan dawladdan sidii u bilaabatay loo galay sidaan u soo marnay gumaysi dawladda Kenya nidaamkeeda oo lama amaanka lama bedelin ilaa hadda kii tababarkii la siinay kii 1963 la siiyay kan hadda la siinay isku mid waay marka waxay u baahan yihiin nimankan inay gadaal loogu noqdo nidaam anaga anfacay waxaad arkaysaa mar qaar waxaan dhahnaa waa isqabsanaa waxaan dhahnaa askartan dhan ama lama amaanka dhan waxa lagu soo tababaraa hal qori hal meel lagu soo tababaraa laakiin markaan imaano maxay noqon marka midna ka soo qaad askari joogo Muranga askarta qori maqat uma baan inad qori qatabo maxaa qafada la soo qabanaa dadka soo qabanaa uma baan iyo askari joogo fino isku nidaam noqon karaan hal qori G3 la sii labadooda dadka asla digaal rabo isku hortagi askariga fino waa dad artillery iyo bomb iyo kii kala wata ninka askari Muranga joogi uma baan wax sayto marka labada nin hal tababara la soo sii hal huba la soo sii ma shaqeyn marka waxyaalaha keenay dawladdan karikaramka ay ugu tirgashay tababarkii ay ugu tirgashay waa inay ka bedesho wax sayto waxa dadka markii qof kasta meesha loo diray ay ku xiran tahay bukoodkaas iyo turkaanadaas nimankaas dhulkaas jiro niman xoolo qaada way xoolo deeqadan askar deerkan askarta waa lameena ayaga asaga naftiisa waxa lagu tababaray kiganjo waa nyeri meel loo baahan ma qori meel qori wada dadka askarta qaar hata qof qori wad wiligood markin say u dhasheen meesha askar lagu soo qori marka nidaamka loo baahan yahay ninkan waxa lagu tababaray maxaa ma lahadas waxaan arkay in askari dhaha xashiish ana wili markin saas ku soo qabana marka way magaalada dhexdeeda Mandera dawladda Kenya mawaalanta waa fiyuuda maxaa la rabay waxyaalaha looga tirgalay dawladda in ciidamadan ka hortagan kulli in la bar la tuso la dhaqan waasaas kan waa daawo darooga ka tan waa daawo kii kale tan waa daawo isku dilay tan waa hub kan waa waxyaalahaas in looga tababaro waa laakiin aan xashiishi weydiinayna hadda askari inda maal oo dawladda Kenya soo tababartay hadhow darooga ka hortagal raba lagu leeyahay hatta asaga dalasi waa isku xunaaso wahagaag waa maxay caqabadaha ka haysta laamaha amaanka ka hortagga isku dhacyada soo noqnoqday wallahi mar qaar badi waxa ayaga ka qayb qaatay mar qaar waa ku sheegay ayaga ka qayb qaatay dhanka ay la jiraan mar qaar hubay ka gadaan waxyaalahaas wax qarsoon ma aha wax dhulka dhan yeelo waa hadda tirto wata ku cadeynayna waa ku sheegayna saasi xagga ka dhacdan ku dheen waxyaalaha ayagu ugu tirgaleen waa ayaga dhinac la jira laakiin hadii ay qof dhexdhexaad ay yihiin in halka waa la gaari karaa maxaa waa la kasi karaa dawladda intelligence ay qabtaa dambi baarida qabaan dabagal ay qabaan waa ogyihiin labadaas qolo ama labadaas qofka gardaran qof kale waa kala garan karaa waa kala saari karaa laakiin cadaalad kama aha inay wax ay qabtaan mashruuca u socona lacag uu la qaataa in dambi halkan la bilaabo oo isku dhacan la bilaabo wadada mashruuc ka dhigtay in hadii aad fiiriso 3 sano la soo dhaafo markaad fiiriso lacagta lagu isticmaalay wacyi gelin iyo ka hortag khilaafaad dhulkan 1 billion plus ay gaari 1 billion ma qawl hada qaban hay'ad ha noqoto dawlad ha noqoto sida raacdi weydi hay'ad kasta 200 milyan 300 milyan 400 milyan
isticmaalaysaa khalaafada la xalina shir xagga lagu qabtana shir kale xagga lagu qabtay ku kale xagga lagu qabtay waxaas wax saciidina maaha inta dadkii madaxa balka dawladda laga rabi rasmiyan inay sheegto meesha kasoo bilaabatay baash meesha kasoo bilaabatay dalaga daaweyn ma daaweysmayso ma jiraan caqabada sida faragelinta siyaasadeed xadidid agab mise wada shaqayn la'aan ma jirto lama amaanka haysato ku sheeg horta xadidid qalab hadda tirada ha military mogiyo ADF mogiyo wax kale oo maanta hadda yani hub isku aaminaan isku daafacaan haystama laha maana looga tirgelin waxa military in loo soo sheego markii kuwan loo report loo keenay si sheegaan hadana mar laba hadda kadib la soo duuli waayo waxa shaqayna maahan hadda diiba ninka markii asaga tilaabo qaadi karin oo waxba ka qaban karin bilaashay noqoni fargelin siyaasa waa jirta ku sheegay MPA ku jiro governor ku jiro marmar madaxweynaha ku jiro madaxweynaha Kenya oo ku jira meelaha skiima dowlad skiima asaga wana gacmal waay waxa mar raxda dhageysanayo report oo bokot iyo marakwet dhaxdooda dad qaarna qoryaal laga qaaday dadna waa hubeysiin burcad Malaysia hub qabto waay qolada kale ku soo horjeedinay hubka laga qaaday waa laga dhigay marka fargelin waay ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama governor ha noqdo ama MP ha noqdo ama MC ha noqdo wadarki ayagu waxa taas nooga sii daran oo dhibka meesha ka jira waxa waaye sharciga la sameeyay policy markaan ku dhahay waxa waaye biilka la keenay baarlamaanka anaga ayaan dhigay biil oo laha conflict resolution and community cohesion laha ayaa la keenay meeshan waa diidan wuxuu sii sheegaya in fariin wax sii bixinaya maxaa dhici doona xagee dagaal ka dhici doona inta loo mareynaa dagaal ka dhaca maxaa horta noogu sii siraadana ninkan booliis aan qaynuunahan markuu soo keenay baasha wax anaga dan noo inaas keenaa la rabaa laakiin waxa hadda ninkan noo sheegaya waa wax asaga soo saaraysanay ma soo saaraalna dhaqaalo ku raadina marka hatta police level ka naga halaysan macal hatta Kenya mar qaar waxa darka MBL kayna war uma hayna hatta wax la soo marimeesha biilka hatta la soo marimeesha in dadkan hal gumaad brisraad la hatta war uma hayna kulli maalintii oo wax la qaadana oo qof meel laga tuuri rabo ama madaxweynaha lacag la yar bixinaan balimada inta kale baarlamaanka arag maalin kasta la soco laba ama hal hal qof haday ugu badas 22 MB waa waxa noodisan hadda ka yimaadaan laakiin laba qof haday ka yimaadaan ka waran maalintii baarlamaanka la fadhiisana aad baad u maasantahay Nuur sidee cabashooyinka qabiilka u sii adkeeyaan dadaalada lagu hortagayo isku dhacyada horta ma adkeynaa waa fududeynaan anigu ma maleynaa inay adkeynaa hadii qofka waxa jira oo rasmi ah iska cabanaya badi anaga markaan fiirno waxa ku jirnaa arrimahan jinsiyadiyo hortaga farxumaynta dumarka markay aad dhaxda cabashooyinka qaar hadii hatta la keenana inta laab ka qadama maanlito waxaan u maleynaa waa maqashay maleynaa gabar laba nin ay meeshan ku suubiyeen farxumayn ku suubiyeen galmo ku suubiyeen haddana waxay ka qaadeen video sawir ay ka qaadeen arrinteeda waa arrin kootin yeesha police laakiin markii loo keenay waxyaalo badan ay ka bixiyeen in dadka sila dacweey maxaa keenay musuqmaasuq nin siyaasi ku dhex jiro arrinta marka ninka soo cabto maxstara qofka du soo cabun waayo wax soo sheeg waayo waxa uu qarsoon waay xumaan soo wada soo maxaa waa dhurma markoodi waa dilaaca markii dambe wixii warkiisa dil dhageysan cabashadiisa dhageysan markii dambe waxay noqon inay asagan falaad xuma kala uu gal marka cabashooyinka horta waxay kaalmeeyeen inay la socdaan dhaqaaqa arrimaha ammaanka inay la socdaan ay nimankan ku kaalmeeyeen laakiin mar rabaanba in loo keenay birwin markalna ayaga keen ku dhahan qorshe noocee ah ayaa lagu wanaajin karaa xiriirka bulshada iyo laamaha ammaanka si loo helo wada shaqayn koow horta waxaan ku dhahay mar horna ku sheegay waxa waaye inay lagu dhaqmo sharciga lagu dhaqmo qaynunka Kenya Constitution of Kenya lagu dhaqmo nimankan ku dhaqmayna laba ha qaateena qodobka koowaad oo sharciga Kenya sheega sharciga Kenya qodobka koowaad wuxuu dhahaa people sovereignty awood ugu dambaysa go'aan lagu gaaray wadankan waxa iskala qofka shacabka marka ninka madaxda ama ha noqdo state officer oo qof dawlad soo dirtay noqdo county commissioner ha noqdo OCPD ha noqdo county commander ha noqdo OCS ha noqdo ama MC ha noqdo MB ha noqdo governor ha noqdo madaxweyne ha noqdo ha ogaad horta dadka soo shaqeynaya inay dadweyne yihiin wax iska shaqeynayna wax dadweyne iska leeyihiin horta ha ogaadeen ayaga taas marka xornimadu waxay ka imaadaysaa ninka adiga ku shaqeynaa kuma shaqo jaamay beertada ninka ku shaqeynaa waa nin adiga markaad shaqo ka dhigi karto marka shaqay ma u dhigi karto ha u qaateen horta sidaas inay waxaan ay ka shaqeynayaan wax anaga leenahay wahagaaka aad baad u maasan tahay bal wax noogu sheeg doorka wakaalada sirdoonka ee ilku haynta iyo ka hortaga colaadaha ma garan kari laakiin waxaan u maleynaa meeshan ka dhunsanay waxa la biyay waa la barxay andana diluted laga dhig horta nimankii intelligence military intelligence gooni u qabaan NSS gooni u jirta police gooni u qabaan prison gooni u qabaan game warden gooni u qabaan wixii dhana
baashi dhana nidaam ka dhumay intelligence anagu waxaan ku ogeeyay meel loogu hagaago NSIS inay tahay laakiin waxyaalo kale oo ka baxsanaa jira ayaamahan haddana weli gobolkan gaar ahaan gobolkan markaan raan zaid ay ugu baxsan yihiin qof kasta oo waxa dhiibaa report anaga nugeen anaga halkii gacan oo one armki oo ugu hagaagi leena waxa dad ka baxsanaya gacanta ku hay bash marka intelligence reliability aan la helaynin boodo kii lagu kalsoonaan lahay baab la helaynin hadii la helana kii fulin hadana fulin hadii la soo gudbiyo intelligence ama raacida soo gudbisa ama dawladda soo gudbisa hadana fulitaanka ninka fulin lahay hadana la helaynin hadii la helana hata kii fulitaanka waxa hadana dib ka dhaca waqtiga hadana responsiga hadana dheer waxa 5 minutes u baahan police station 200 meters qaf u jira amal responsigiisa qaadana 1 hour 2 hours marka qaf oo 20 kilometers u jira marka kornaas qaadana way aad baad u maasantahay Nuur waan soo laaban doonaa waraysigaasi marka hore aan dhageysano shacabka reer Mandera maxay ka dhaheen qodobka barnaamijka maanta بسم الله الرحمن الرحيم مجيد وعبد الحكيم عبد الله علالة سببها waxa kamid ah dadkii oo in ay isku digaalaan dhul amal oo dhulka isku qabsadaan oo dhulka isku digaalaan tan kalena waa xilliga abaarta amal abaartana waxa sababta in ay dadka isku dhacaan sidii biyaha wararka biyo galeenka ay isku digaalaan taasna way sababi kartaa mid kale waxa sababi kara waa dadkii oo dhaqankii ay ka tageen duqowwaha laga dambeeyeen marka duqowwaha dhaqanka hadii la raaco qof dila amal duqowwaha inay xaliyaan taasna waa shay muhiim ah siyaasadda amal hata way dhici kartaa dadku inay qof oon la dooran waa la doortay la dhaha ama qabiil ay u kala baxaan taasna idan way sababi kartaa laamaha amaanka hadii oo la isla shaqeeyo oo dadkii number free ah la siiya marka oo chiefifkii la shaqeeyo marka taasna waa shay muhiim ah dadku waa ina number free ah la siiya oo dadka wacaan marka dadka waa ina peer training la siiya oo qaabkii wax loo soo report gareyn lahay dadka ina loo sheego way marka si aad qof dhow hadii aad report gareysa dib kuuga imaad lahayn taasna dawladda ayaa laga rabaa dadka in ay training ay u suubiyaan qaabkii wax loo report gareyn lahay qofkii ay ka shakiyaan waxa la rabaa in ay si degdeg ay dawladda ay u wacaan dadka maxaa way horto su'aashaas aad bay u adag tahay marka kalsoonida waa horto shay muhiim ah way dadka in ay dawladda ay ka baqaan ma aha dawladda in ay ka baqaan dadka qaar dawladda in ay askarta ama booliska marka ama military ay wacay rabaan ay cabsadaan taasna waa laga fiican yahay dawladda waa dawladeeni way ina la shaqeey way waa in oo qof korto muhiimada kale maxaa waa luqad qofka dad luqad garanaynin marka waa isla shaqeyntii dib bay keenaysaa qofku waa ina luqadda Swahili aqaana dad Ingiriis as garanayna taa waa ina luqadda Swahiliga uu garanayo taas shay muhiim ah way dawladdu waa in ay la shaqeysaa dadka oo hadii dad ay la shaqeynayso dad oo luqadda Swahiliga garanayn ay la shaqeeyaan ayaa shay muhiim ah maxay luqadda shay muhiim ah way askarta shaqo fiican bay qabtaan isku markii meesha ay imaadaan marka hadda nabadgelyada Mandera aad bay u fiican tahay ma sha Allah marka nabadgelyada aad ay u fiican tahay sidii wadamaha dariskeena amal ma sidii Soomaaliya amal maaha marka nabadgelyada aad bay u fiican tahay nabadgelyada booliistina patrol bay suubiyaan marka habeen iyo dharaar patrol bay suubiyaan KBR tan aad bay u dadaalaan meel kastana way joogaan marka habeen iyo dharaarba dawladda waa shaqeysaa been lama sheegi karo dawladda aad bay u shaqeysaa waan dhawahay waa Cabdiweli waxaan isleeyahay dagaalada beelaha dhaxmaro waxa keena dhulkaas waxa noqon kara daaq ama balood laba qof isku qabsatay ayaa laga yaabaa in ma aragtay saameyn weyn dhaliyo ama dagaal dhaliyo inta badan Soomaalida waxa la qato waxa laga yaabaa meelaha kamid ah in roob uu ku da'o oo coos ka soo baxo ay ma aragtay qabiilkii meesha degnaa ma ahan qabiil kale meesha soo dego taasna ay keento ma aragtay in dadkii meesha degnaa inay macnaha ay dhibsadaan dadka walaalahooda soo degay oo daaqa soo raadsaday abaarahan iyo roob la'aantan soo noqotay ayaa aan dhihi karaa iyo dhulka oo la isku qabsado inay sabab u tahay beelaha inay isku dhacaan wallahi kaalin weyn bay ku qaataan lama amniga inta badan markii dib dhaco ayaga dadka soo dhaxgalo ma sha Allah qaasatan chiefifka iyo odayaasha iyo lamaha amniga inta badan markii dib dhaco waa dadka macnaha oo damiyo ama dhaxgalo calaamadaha ka hortago
dadka maslaxa u keeno. Inta badanaa waxaa dhacdaa eelaamaha amniga inay waqti badan ay geliyaan, ay macnaha ay meelaha dhibka ka dhacay ay cabaar ay joogaan. Marka kaalintooda aad iyo aad bay muhiim u tahay. Laamaha ammaanka ee bulshada waa inay la shaqeeyaan dhibka markuu dhaco. Laamaha ammaanka horta waxaa waaye laamaha ammaanka waa inay la shaqeeyaan ee bulshada ay la saaxiibaan. Dadka markay isku dhacaan waa inay maaragtay ay xal ay keenaan. Inta badana bulshada askar markay arkaan way ka cabsadaan, ayagana ay la saaxiibaan, ay maaragtay ay dhibkooda ay u sheegtaan, ay ka cabsanin. aad bay u mahadsan yihiin shacabka Mandheera oo ka dhiibtay afkaartooda barnaamijkeena. haddii aan sii wadno waraysigeena Nuur Cabdow, waa maxay calaamadaha lagu sii garan karo ka hor colaada intaysan qabsanin oo ay weynaanin? annaga Soomaali waxay lahaan jirtay dhaqan oo aligoo nin la hadla waxyaalaha la sii saadaalin karaa, waa la garan karaa. dadka guuro meesha laga guuraa, dadka guurana dad aragta baadiya markii la joogo amal area-geeda oo laga qaxataa aragta cabsiya jirta, ama khilaafa noqdo ama colaha noqdo, wax soo socdo wax ma jira. waxaa kaloo la heli jiray signal la soo heli jiray, degniina la sii heli jiray haddii meel hebel xoolo ay ka jiraan, xoolo ku jiridaan haday jirta camal. maxaa anaga dhaqankayna waxyaalaha dhaqaalahayna wax isku salaysnay xoolo haddaad jira. waxaa la arki karaa dad aan loo malaynaynin, dad aad garanaynin, strangers, dad aan dhulkaas laga garanaynin oo badan. sidaad anaga haddan haysato waay, waxa walaytan waa haysato walayta aniga magaalada dan axmar 100 qof on garana markay ninkii meel ugu hagaagi karta ma laha, hadii address ma laha, document ma laha, qabiil ma laha, meel aad ugu hagaagi karta ma jirto. tan waxay tusin marka waxaan ku fadhiisanay timing bomb, waxaan ku fadhinaa hadda Mandheera waxay ku fadhidaa timing bomb. mar wax dhig doon la arki doontaa fiir. waxaan ku fadhinaa inaan qaraxdo maxaa dadkii annaga nagu soo darsamay oo ajnabiga ama dadaan garanayno reer Mandheera ahayn 90% waa dad 30 sano ka yar. dadkaas 30 sano ka yarna waa ogtahay inay qaybtay ka qaataan fal dambiyeedka ka dhaca adduunka. marka dadkaas camal la arkaa soo badanaa calaamooyin badan la arkaa. marka dhaqaaqaasay hatta community horaan waa qabi jirtay, waa dareemi jirtay. waa sida markii roob soo socdo waqtiga xilliga markii la gaaro sanadkan roob yaraa jirta oo dad qaar waa garan karaan. maxaa dadka waxay qabaan cilmi qabaan, maskax qabaan, laakiin dawladii yaab intelligence ku dhex qabta dadkan gudihiisa. laakiin intelligence kan soo qaaditaankiisa, gudbintiisa iyo fulitaankiisa ma la isku keeni karaa. marka su-aasha kale haddii aan ku weydiiyo, sidee sinaan la'aanta iyo gacan bidixaynta u culin karaan oqdad beeri kartaa colaada? haddaad aragto waa tii hadda dhaqaalaha ka sheegayn, dhaqaalaha countan dhaqaalaha imaada, meel qaar waa biilaan, meel qaar waa isbitaalaan. marka inay ay khilaaf bilaawna social media hadda aragto waa la cabaadaa, cid hebel saana ku dhacday, cid hebel biilaan waa, cid hebel isbitaalaan waa, cid hebelkii kale waa, cid hebel jiid ma qabto. waxaas kulligood tuhumka laga qabayo waayo qofka. marka haddii listuhumana tuhumkana waxaas keenaya in laisku dhaco ama khilaafaas imaado. marka sinaan la'aanta waa waxa ugu weyn oo ka qayb qaato waaye. maxaa sinan waa dadka la simi waaye, lama simi karo. laakiin adiga cadaalad loo samayn waayo, lama simi karo. binaadan labada naagood la qabaa la simi karin allah. laakiin haddii la dhahaa cadaaladda loo suubina dadka wax qiyaase khilaafku waa yarana. muhiimad intay dhan bay leedahay horumarinta bulshada, cadaaladda iyo kobaca dhaqaalaha si looga hortago colaadaha beelaha? horta adduunkan dhan wax la isku haysto dhaqaalo waayo. laakiin markaad fiiriso dawladda qorshe ay ugu tiragashay maanta oo kaaliya dhaqaalahan ha lagu kobciyey iyadoo la fiirinahayo bulshadan la fiirinahayo ma jirto. labada dawladood markaa afkan baa laga hadlaa, waraaqna waa lagu qoraa. laakiin fulitaankii la fulin lahay waxaasito hadda 13 sanaan marayna. hal mashruuc oo makasayani, hal mashruuc oo dhalinyaro dhaqaalo loo sameeyey ama dhaqaalo ayaga loo qoonday oo meel loo dhigay oo la dhahay 50 milyan la siiyey 15 sano soo dhaafan dhalinyaro lagu maalgeliyay inay dhaqaalo kubac ku suubiyaan ma jirto. marka maxay tusiinay marka lacagta haysan waa 130 bilyan waay, 130 bilyan waay. marka lacagta intee aad haysaa marka hadii marka looma samaynayo intaas dhan. waxaa laga faa'iideysan rabaa dadkan inay dhaqaalaan ay ku dhacdo, khilaafaas imaado, la isku dhacaado, colaas meesha ka bilowda. ninka siyaasiga xaggaas ka fadhiisana lacagtaadan uu cunaa, waan adiina isku keydiraha. ammaanka adduunka dhammaanad arkaysan ku dhahay dhaqaalaas ku saabsan yahay. marka haddii arrimahaas tiirarkaas haddii la sameeyo oo la xaliyo, halkaas lala imaado, waxaan aaminsanahay 80% isbedeli. wahagaag sidee mas-uuliyiintu u carqaladayn karaan laamaha ammaanka ee ka hortegidda colaadaha?
mas-uuliyiinta horta fargelin badan ay ku hayaan waxaa laga yaabaa meel wax lagu sheegay oo laamaha ammaanka tilaabo ka qaadi lahaayeen inay nin xildhibaan iska hor istaaga ama governor iska hor istaaga suurtagal waana dhacday magaalada runtada waa ka dhacday waa jirtaa waa ha aadina allaha meesha waata marka colka el sii siyaadina dhibkii dadka soo gaarayna waa sii siyaada marka marmar qaar waxaa ku dhici hataa inay u baahan yihiin kab ama kaalmo inay u baahan yihiin gawaarida qaar mar qaar batrool ma qabaan ama dowladdiiba uma soo sii deynin lacagti countyda la rabay haddii wixii emergency ay yihiin oo wax dadweyne dhib u keena yihiin inay ay siiyaan batrool ama shidaal siiyaan tii camal waa laga goyna waa laga istaaga waa laga goosana gawaari hadda ilaa 2-3 waa maqlayo oo batroolaan u fadhiyaan gawaarida nimankan KBR ka isticmaalaan waa joogaan ninkii gaariga laga kireyna lacag la siinaya gaarigana lama isticmaalayo marka waxyaalaha madaxda ay fara kula jiraan ay kamid tahay laakiin ayaga ma arkayaan anaga waa arkayna laakiin ayaga ma arkayaan marka meel loogu sheeg ma laha dhibka tan waay doorka laamaha ammaanka ee xalinta iyo mideynta bulshada horta laamaha ammaanka markaan hore usii fafahin horta laamaha ammaanka qaybtan xafiiska madaxweynaha iska leh xafiiska madaxweynaha ayaga ay ka baxdaa wixii oo wadankan gudihiis ku saabsan arrimaha gudaha waa ka baxda laakiin sharciyan ayaga naftooda kuma dhisna qanuun Kenya constitution of Kenya kuma dhisna kuma jiraan inay meesha joogaan chief ma jiraa iyo ma jiraa DC ma jiraa county commissioner ma jiraa waxa isku inay county bedeshaal rabay maxaa county-da sababta loo keenay waxa waaye in adeega dhaqaalaha iyo hoos u dejinta xukunka in ay loo keenay county-dan waxa county government loo keenay taas way marka dawladda Kenya waxay sameysay qodob sharci ay geeyeen baarlamaanka ku ciliyeen ay dhaheen ku meel gaar ahaan aan meeshu sii hayna marka qanuunka naftiisa ayaa lagu sii ciyaara sharciyan hadda la marka constitution of Kenya dalla meel ay ku jiraan ma jirto ayaga sii hay hadana markii aad tirada lama marka tirada prison ilaa iyo police waxay qabaan hay'ad looga dacwoodo hadii ay xadgudub ku suubiyaan meel looga dacwoodo ay qabaan aybo hadii ay wax ku geysto police hadii ay xoolo ka dhacdo hadii ay ku disho hadii nabar ku geysto ayaga looga dacwoodo military inta looga dacwoona sida idinka aad weystiin meediyahan lama ammaanka ku jirtaa laakiin yaa loogu dacwoona waa marka day wax sameeyaan naga xoogaan qafay dilaan xoolay boobaan yaa loogu dacwoona marka ayaga midaysnana hatii aan daw ku sheegay waxa nooga tagay watii oo gumaysiga Ingiriis nooga tagay ayaa sii socoto marka waxaan wax isbedelay ma laga dhigi karaa ma la bedeli karaa horta dawladda diyaar ma tahay waxaan inay isbedesho maxaa maanta dhan meeshaan aan ku wareegin oo ku sheegay 1 billion plus lagu isticmaalay peace and security county aan dadkan ku sheegay 1 billion lacag badan wax banaad kama soo socdaan hadda fiiris aad baad u maasan tahay fikirkaada ku aadan habka ugu wanaagsan ee lagu hortagi karo isku dhacyada bal wax nooga sheeg amniga inay dadweynaha xukumaan ownership wax lahashada ammaanka hortooda dadweynaha la hadayna hal si maxaa dadweynaha meel uu qorshaysan kama warayaan meel operation lagu qaadan kama warayaan meel talaab laga qaadan kama warayaan hadda midalan mafaalina laakiin Ethiopia hadda tagta dadweynaha ayaa go'aan ka leh laakiin anaga sharciga boga koobaadba marka futo qodobka koobaad ku dhigahay dadweynaha qofka dadweynaha oo raydka ay aska leh go'aanka ugu dambeeyay go'aanka ma la sii marka wixii dhibi lahay way sheegi lahayn wixii dhibi lahayn way sheegi lahayn soo ilaa qofka markii wixii asaga loo dhiibo asaga control hay asaga marka wixii iiday maamulahay ayaas wax ka dhigi kara midna la fadhiisana dadka fadhiyo kulli hal qof oo ka imaade hatta northern Kenya hata qof ku shay hata kuma jiro oo isku dhaqan yihiin dadka meesha degan gidigood Kisumu Mombasa Eldoret ki kala yimaadeen sida cidooda tahay ma ku laqanaso laakiin meesha ay baasha ka qoronsanto waxa waan ku dhahay dawladdan mu siin kartaa awood amniga inay dadweynaha la haadaan sidee bulshadu la shaqeyn karaan laamaha ammaanka si looga hortago colaadaha la isku sheega waxa la shaqeynaa ma laha la soo imaadaan lacag la cunaa wala taga runtan ku sheega waxa la isku sheegahay ma laha maxaa hadaa la isla shaqeynahay adiga hadda ila hadlaysa hadaa stationkan tagta waxa laga yaabaa waxa oo 10 daqiiqo kugu qaadan lahaa inay 3 beri 4 beri kugu qaado marka see loola shaqeyn dad nacso ama watiyan ku sheegay qafa la dili waa emergency maqto hadii la gaari waa emergency kaas marka waxay u baahan tahay si degdeg ah in loo gurmado degdeg ay u baahan tahay gurmad degdeg ah hadaa jirin marka qofku waa dhintay kii kale waa tagay maxaa meesha yeel marka see loola shaqeyn marka waxa la shaqeeyaa sheegaysa maxaa marka la shaqeyn been la sheegay marka ilaa ay ka ogolaadaan ilaa dawladda ay ka ogolaata ammaankan inay dadweynaha iska leeyihiin sida sharci Kenya uu dhigay ilaa ay ka ogolaata oo sida Ethiopia amal qafa soo qaban kartadi qafa ku soo qaban karo oo station ku geyn karo dhigay ninkan waa ka shaki adina waa raacay ku qasbantin inaan raacdo maxaa nidaamka meeshkii la saasay ilaa saas amal ay ka noqoto wax ammaan oo jira ma laha been aan sheegayna lacagtan saas lagu dhameynaa
waa ma xalka isbedel waad jeclaan lahayd in lagu inaad aragto ka hortaga colaadaha sharciga qaynuunka Kenya constitution of Kenya hal raaca siday wax u sheegaysa hal raaca intaas badbaado ku jirta hadii la raaci wayso ma saan bay ku soconaa fikirkaaga ugu dambeey la fikirkaaga anaga nasiib xumo meelashan deganaa meel col ka samaysanay horta meeshan deganaa luqunta geel bashiisa lama cunaan la luquntiisa hilib kuma yeelo lama anaga qoraanba luqun taagnen meeshan naga xukumayo waa 1200 kilomitir way Nairobi waa 1200 kilomitir ana jidkaan waa aragtay waxay jid lagu socdo maanta ana maalintii oo ad la weeraray 2014 ka ahayd malan 2014 is 2015 markii la weeraray Garissa University ana dawladda Kenya diyaarad ma waynin ana helicopter ma waynin maxaa keenay in askartii oo dadka badbaadin lahayd nimankii oo GSU dadka badbaadin lahayd in gaari lagu soo qaado Nairobi ilaa Garissa ma diyaarada la way Kenya diyaarada hatta tukala dalo ay tukrimeel way diyaarad konton ma gaaray nimankaasi to nimankii dadka badbaadinay diyaarad konton qof qaad hadda Soomaaliya wala soo karin kara 1 milyan dawladda ma anna kuma lahaad diyaarad ku keentay dad laakiin maxaa keenay marka in nidaamka socon waayo oo saacado qaata oo dadkii dhamaadaan ilaa 140 dhowr qof ay dhintaan intaas oo qof ay dhaawacmaan oo intaas oo shay la burburiyo maxaa keenay marka meel wax laga haystaa marka si daayay waxay haysan dadkan inta si daayay looma dhaqmahay marka sharciga ninkii arintaas mas'uulka ka hayn talaabo laga qaadan ilaa maanta way shaqeynayaa xafiiskaas fadhiya maxaa macna marka aad bad u mahadsantahay Nuur Cabdo waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo fikirkaaga haddii aan u jilacno dhanka dhageystayaasha halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa xalqadeena maanta aan diiradda ku saarnay la shaqaynta saraakiisha ammaanka si looga hortago colaadaha soo noqnoqda ee beelaha waad ku mahadsantahay dhageystayaal la jaanqaadkaada nagala soco baraha bulshada ee Facebook X iyo YouTube ciwaankuna waa danta dalalka dariska xalqada xigta waxaan diiradda ku saari doonaa kor u qaadida ganacsiga xuduudka ilaa iyo kulanto dambe waxaan kaaga tagayaa anigoo Maxamed AK Ibrahim caafimaad iyo nabadgelyo